أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحبابتا meel kastoo naga dhegeysanaysaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib insha allahu tacaala maanta halkan waxaan kusoo gudbin doonaa qiso cajiiba. qisadaasi waxaan nooga sheekeynay nebiga calayhi salaatu wasalaam. waxaan rajeynay inaad ku saliso nebiga calayhi salaatu wasalaam. nebiga baana ka sheekeynay calayhi salaatu wasalaam, xadiis saxiixana weeyaan. qisadana waxay ka dhacday nin ka mida reer bani israa'iil. ninkaasi waxaa la dhihi jiray alkifli. wuxuu ahay nin hadda allaba kuu rooyi aan macsida kala dhowrin, ninaan ilaahay ka xishoonin, nin wuxuu rabo oo dunuubo macaasi iska samey buu ahaan jiray. marka waxaa dhahda maalin maalmaha ka mid baa gabari u timid ayadoo baahan dan heeso. gabadhiiba wuxuu ku yidhi, haye 60 diinaar baan ku siinayaa, ee waxaa lagaga baahanya inaad maanta aad hadalaba kuu rooya howl sameyna u baahana oo galmay aan sameyno. markaasay gabadhii ogolaatay. waxay tiri haye, waayo gabadhi baahi baa haysay. 60kan diinaarne aad bay ugu baahneed. ninkani shardi wuxuu uga dhigay asoo haddii u galmadan oo u galmoodo inuu lacagtan siin doono. waxaa dhacday markii ninkii damcay in hooshii fuliyo oo meesha ninka xaaskiisa ugu tagay oo fadhiistay jilbaha bay marka gabadhii argagaxday oo oysay oo jareysay. ninkii markaa wuxuu yidhi, oo heedha miyaan ku qasbaya? soomaadan ogolaanin, soomaana kuu sheegin shuruudda, soomaana wax walba kuu caddaynay, waa maxay jareyskan iyo aad samaynaysaa? markaas waxay tiri, waa waxaana weligay sameynin, maanta baahiba ay keenta mooye weligay waxaan maan sameynin. markaasuu ninkii inta ka kaca wuxuu yidhi, adin masaan baa yeelaysaa, annama waxa ogaa baan sameynaya. wallaahi laa acsi laaha abada, ilaahay baan ku dhaartayna maanta kadib ilaahay caasin doonin. gabadhii yiri, 60kaas diinaar iska qaado, waxana kaama rabo, orod iska bax, gurigiina aad. dabeetana ninkii marka wuxuu go'aansaday saacaas ka bilaabataahi inuusan wax dambe oo macsi ah uusan ilaahi subxaana watacaala la qaabilin. habeenkii yacni maalintii qisada dhexeeda habeenkeedii buu ninkii marka geeriyooday. tii rabi baa u timid. markaasaa albaabkii subxii maxaa ku qornay, ina allaha qad kafara lilkufli, ilaahay waa u dembi dhaafay ninkii la yiraahdo kufli, ilaah waa u dembi dhaafay. waxa weye ilaahay baa yani khaatimada u wanaajiyey. ilaahina subxaana watacaala waxaa weydiisanaynaa anigii adiganba hadday dhegeysanayo iyo dhammaan muslimiintaba inuu khaatimadeena noo wanaajiyo, towfiiqdana waafajiyo, addoommadu raalli ka yahan ilaah nagu daro. hada wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.